بسم الله الرحمن الرحيم maamulka cusub ee gobolka banaadir maalmahanba waxa uu ku howlanaa dardargelinta howlaha iyo adeegidda shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir tan iyo markaan xilka la wareegnayna arrimihii ugu horeeyay oo aan ka qaadnay tallaabooyin waxaa ka mid ahaa kow inaan horta hagaajino maamulka maaliyadda ee gobolka si shacabku ay kalsooni noogu qabaan annaga waxaa naga go-an inaan si daacad ah ugu adeegno ummadda Soomaaliyeed si kalsooni shacabka siin karta ammaanadana aan u haynana oo shacabku leeyahayna ay noqoto mid iyaga loogu adeego arrimahaas iyaga kadib waxaa noo xigay inaan si strategic uga fikirno howlahan horyaalla oo baaxadda badan iyo gobolkan meesha aan rabno inuu gaaro kow annaga waxaan rabnaa shacabka ku dhaqan gobolka banaadir in ay loo dhoweeyo maamulka in maamulka uu yahay maamulkoodii waxaa naga go-an in adeegyadii loo fidiyo waxaa qorsheynaynaa in howlaha wadooyinkii la dardargeliyo waxaan qorsheynaynaa in barakacyaasha magaaladan degan inaan u helno daryeel ay u baahnaayeen xuquuqdoodiina loo helo waxaan kaloo qorsheynaynaa in arrimaha horumarka kale ee caasimaddan u baahan tahay sida caafimaadka iyo waxbarashada ayagana wax ka qabanno intaas ka sokow waxaan aada uga mahad celinaynaa shacabka Soomaaliyeed meel walba uu joogo noo soo dhoweeyey nagu dhiirigeliyey kalsooni badanna noo muujiyey in maamulka cusub ay siiyeen si aan ugu adeegno shacabkeena arrimaha amniga waxaan ka qabanayno si istaraatiijiga inaan heer degmo ilaa heer waax ilaa heer laan aan gaarsiino oo guddiyada amniga heer gobol iyo heer degmana ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan lana hubiyo in xasilintii caasimadda oo muddo socotay la dardargeliyo si amniga magaaladan loo sugo iyadoo shaqo dhow lala yeelanayo hay-adaha amniga laguna dhiirigelinayo howsha ay hayaan arrinta kaloo iyadana ugu muhiimsan waxay tahay barnaamijka darisaynta muddo socday inaan dardar gelino oo aan ummaddu ay noqoto shacab muxuu ahaa dariskiisana u naxaya amnigiina ilaashanaya annaga nagula xisaabtamaya inaan adeega bulshada u fulino arrimahaas oo dhan ayaa ah horta arrimaha aan rabno inaan wax ka qabanno